wasiirka loo yeedho ka deegaanka macdanta iyo beeraha si ay warbixin looga helo oo golaha dabeetana arrimaha ka yimi dooda ka dhalatay ee guud ahaan runtii cimiladu isbedel xoog leh ku yimi oo malaashala iyo waxay ahayd ayax baa weerar noo hayay hadalhayntana way ku jirtay roob la'aan waa jirtaa dee wax la isweydiiyeyba cimiladii baa ku helinaysay warbixintii iyo waxa kuu qorshaysan iyo shuuro badan ma helaynaa unbaa taalla maanta waa beer roobaad runtii madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland 2019 ayuu ballan qaaday in wixii dalka ka soo gaala la iibsado hay wasaaraddu maaliyaddu muxuu ahaayey u diyaarisay wixii lagu iibsan lahaa marka arrintaa runtii way fusho muxuu ahaayey ballanqaadkaasi uu fulay lacagtii kaasha way taallaa waan u haynaa caqabadii qura ee naga hortimid waxayna halkii la dhigi lahaa un bay noqoto halkiina maanta way dhawaatay waa gabagabo marka weegan ama weega dambe soo socda kolley waxaanu bilaabaynaa iibkii raashinka soo go'ay dalka haddaan ni soo qaato beeralaydu aad bay u dadaashay hal mushkilo baa ina haysata marka oo maalin dhaweyto aanu soo aragnay oo iyaguna laftooda haddana xal nooga baahan markaan daarusalaam tegnay iyo markaanu deegaanadan caasimadda ku dhow waxaan tegnay waxaad arkaysaa dadkii beeralayda ahaa khudaartii si fiican bay u soo saarayaan laakiin mushkiladda qura in haysata waxa weeye qofkii ceel buu qodayaa ceelkii booydun baa laga dhaaminayaa waxaad arkaysaa nin 2,000 oo geed leh magaad inaad daarusalaam oo kale 2,000 oo geed oo lin macaana leh oo hantida ka soo geli lahayd iyo magaaladan uu inaga filan lahaa laakiin ninkii marka ceelkii wuxuu ka waraabinayaa 50 boodin 60 boodin wuxuu ku xisaabtamayaa waxaad arkaysaa dhirtii oo engegtay iyo booydiyo biyo si ay isku daba taagan oo la soo waraabinay laga soo dhaaminay beerleydii marka runtii taasina caqabad ba beerleyda nagu noqotay wasaaradda biyaha isla kaashanayna dhawaan waxaan doonaynaa inaan go'aan ka gaadhno oo booyadahan meelo gaara biyaha si loo control lahaa waa ninkii markuu arko booyadii wuxuu ku dhaaminayaa wax gaariya 60,000 iyo 100,000 oo kale ku dhaaminayaan intaasoo booyad baan maanta helay wuxuu samaysan jinkad yar buu jaadka iskaga cunaya booyada halkan badalada loo gelinaya khudaartii iyo shaqadii beertiin way engegtay marka waa arrin runtii u baahan iyada lafteedu inaanu iyadna hoosta ka xariiqno oo u baahan go'aan wax beerta dhibaatada ugu weyn haysataa waa hay'adda WFP leeyahay hay'adda Soomaali alla maalintay wax beertaan ee roob fiican u doo ee ay dalaga goosanayaan waqtiga ay dalaga goosanayaan macaawino keenta maxaad u kala jihayn weydeen hay'adda iyo dadka sababtuna waxa weeyaan mar alla markay wax soo goostaan ee hay'adina wax keento wax caajis noqday iibkii wixii la soo saaray kadibna waxa dhacda inay dadkii ka caajisaan marka dambe ka qancaan inay wax beertaan si ay dadku u dhiiradaan maxaa arrintaa wax uga qaban weydeen ta saddexaad meedla tahay inaad dadka bartaan inaanay biyaha roobka siday uga faa'iideysan lahaayeen ee beerahooda nin waliba bal shakhsi waliba xataa kuwan magaalada deganna dhow inay biyaha xidhan lahaayeen qaabka u xidhan lahaayeen weli taama isku daydeen WFP waa run oo hay'adda WFP waqtiya waxay nagu soo beegtaa waxbay raashin keentaa runtii waan isku daynay waan arrintaa aad baan uga shirnay laakiin waxyaabaha aynu soo saarayno ilaa imika weli isku filaasho maanu gaadhin oo waxaanu ku jirnaa waxa weeyaan weli maynaan gaadhin isku filaasho talabaad qodobka labaad aynu weheliyaa waxa weeye raashinada hadda aynu soo saarno dalkeena ka soo go'a waxa inagu yar isticmaalkiisa oo maalin walba waan ka hadalnaa wasaaradda beer ahaan waa inaynu raashinka isticmaalnaa waayo waxaad arkaysaa galaanka hadhuurka ah ama galleyda haddii 1,000 shilin oo lacag uu yahay qofka beeraleyda dib buu ku yahay inuu galaanka hadhuurka dallacaa waxay ku xidhan tahay mar walba inaga inagu xidhan tahay waa inuu dadkeena ku dhiirigelinaa gol ahaan aad kaga doodaan dadkana aynu ku wacyigelin raashinka inaynu cuno